waxaan maanta halkan aan ku qabanaynaa inaanu ka falcelino miisaaniyaddii ay keentay wasaaradda maaliyadda golaha baarlamaanka hortiisa wiigiina soo dhaafay miisaaniyaddaas oo 2022 oo daraskeedii ahayd talagalkeedii waxaan doonaynaa inaanu halka ka cadeyno miisaaniyaddaas markaanu aragti dhaqaale aragti wadaniyadeed ku eegnay inaanay ay leedahay runtii khaladaad badan oo ku dhex jira waxaanuna ugu baaqaynaa golaha baarlamaanka inay runtii aada uga fiirsadaan waanuna sheegi doonaa meelaha ay khaladaadka ka leedahay meelaha u baahan in la saxo meelaha u baahan su'aalo laga weydiiyo wasiirka iyo madaxda wasaaradda iyo madaxda dalka xukunta maanta intaba haday tahay heshiisyadii haday tahay dakhliga soo xirooday iyo haday tahay kharashaadka ta ugu horeysa haddaan ku horeeyo anigoo Axmed Harshe Ducaale xogayaha maaliyadda xisbiga wadani ujeedada miisaaniyadda aan u saxayna waxa weeye inaanu saxano shaqada qaranka loo hayaa inay saxanto inay noqoto mid dadka iyo dalkaba anfacda inaanu u hadallo shacabka ay miisaaniyaddan khusayso iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland horumarintiisa miisaaniyadda qaranka waa qondo miisaaniyadeed leh oo ay tahay inay ka muuqato baahiyaha bulshada ay tahay inay ka jawaabto baahida ay bulshadu leedahay waxaana muhiim ah inay raacdo shuruucda iyo xeerarka u degsan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jira lifaaqyo iyo tala bixino ay raaciyeen golihii wakiilada ee hore miisaaniyaddii ka horeysay oo ahayd 2022 taasoo ay ahayd sharciyan in la soo dhammaystiro inta aan miisaaniyadda labaad la keenin waxay ka mid tahay khaladaadka miisaaniyaddan ugu horeeya aan ka tilmaami doono inay ku jiraan kuwo badan oo aan shuruucda waafaqsanayn waxaan la soconnaa inay jiraan hay-ado ilaa hadda xeerkoodii aan golaha baarlamaanka aanu ansixin ama aan la horkeenin kaasoo lifaaq golihii baarlamaankii hore miisaaniyaddii hore markii uu geeyey wasiirka maaliyadda oo isla kii ahay lifaaq la soo raaciyey odhanayay xeerkii hay-adahaas waa inay soo raacdo miisaaniyadda ka dambaysa wasiirkii isagoo kii ah xukuumaddiina aan isbedelin wasiirkiina aan isbedelin wuxuu iska dhaga maray inuu raaco shuruucdii iyo fariintii baarlamaankii hore ay fareen inuu miisaaniyadda ku xigta hay-adahooda uu soo gudbiyo xeerarkoodii uu soo gudbiyo hay-adahaas xeerarka uu wasiirku iska dhaga maray ee uu iyagoo miisaaniyaddii ay bilaa xeer tahay uu mar labaad goli ku soo celiyey isagoo tuuray waraaqdii lifaaq ahayd sanadkii hore loogu dhiibay hay-adaha iyo magacyadooda iyo xeerkii inay u soo dhammaystirona waxaa ka mid ah oo ilaa iminkaan xeer miisaaniyadka aan lahayn xeer waxaa ka mid ah ciidanka dabdamiska qaranka ciidanka dabdamiska qaranka waa ciidan qaran waa ciidan runtii muhiimad fara badan u haya qaranka laakiin marka miisaaniyadda la gudbinayo xeerkii ciidanka qaranka ee ciidanka dabdamiska qaranka kuma jiro miisaaniyadda wasaaradda maaliyaddu ay u gudbisay baarlamaanka waxa kale oo aan ku jirin hamaha shidaalka xeerkoodu wuxuu ahaa lifaaqaas iyo ciidanka dabdamiska labaduba lifaaqaas sanadkii hore
ay baarlamaankii hore ay u dhiibeen ay soo raaciyeen miisaaniyadii hore ay ahayd in miisaaniyada dambe intaanay fariintuna ay ahayd miisaaniyada dambe in la soo raaciyo xeerarkaas oo dhameystiran ta saddexaad waxay ahayd madbacadda qaranka in iyana la soo raaciyo ta afraad waxay ahayd hay'adda dib u habaynta shuruucda ta afraad taasay ahayd ta shanaadna waxay ahayd xafiiska garyaqaanka guud ee qaranka waxay ahayd xeerarka hay'adahaas oo dhan in iyagoo dhameystiran la soo raaciyo miisaaniyadda 2022 waxa jira hay'ado cusub oo intii la sameeyay ka dambeysay waqtigaas oo ay ka mid tahay hay'adda cilmi baarista beeraha oo iyaduna aan ilaa hadda xeer lahayn waxa kaloo ka mid ah hay'adda tamarta oo iyadu xeerkii lagu dhisay leh laakiin aan magacaabidii iyo dhismihii xubnaha iyadu xeer way leedahay laakiin xubnaha hay'adda tamarta markii la dhisayay looma marin dariiqii sharciga ahaa ee ay ahayd in lagu dhiso ee uu sheegayay xeerka hay'adda tamartu intaas waxay ahaayeen hay'adaha khaladaadka sharci uu ka jiro ee la socda uu miisaaniyadoodu la socoto miisaaniyaddan 2022 ee ay ahayd wasiirku inuu shaqadaas soo qabto maadaama haystay sanad dhan uuna ka gaabiyay aadna moodo inuu ignore gareeyay fariinta ee baarlamaankii hore ay soo gudbiyeen ama ay soo fareen ama sharciga ahayd soo raacday miisaaniyaddan ka horeysay garyaqaanka guud baa yani hay'adda tamarta ee la sameeyay waxa jira hay'adda tamarta ee la sameeyay xeerkeeda xeerkaas wax ka bedel baa lagu sameeyay xeerka hay'adda tamarta waxa lagu sameeyay wax ka bedelkii xeerka lagu sameeyay waxa loo soo gudbiyay golaha wakiilada isagoo aan ansixin ayay waqtigiisii dhaaftay xeerkaasuna wuxuu ku dhintay golaha wakiilada isagoo yaal waa xeerkii hay'adda tamarta waxa jira xeerkii aasaaska garyaqaanka guud oo hadda xafiiska garyaqaanka guud aynu horu soo maray xeerkaasna iyadoo aan la ansixin ayuu isaguna wuxuu ku dhintay oo uu waqtigiisii ku dhaafay xafiiska ama golaha guurtida iyaguna haya ay waqtigiisii ku dhaafay labada xeerba waxay u baahan yihiin in iyagana dib loogu noqdo wixii laga bedelayo iyo wixii lagu darayoba mar labaadna golayaasha qaranka la hor keeno intaasoo khaladaadi waxay ahayd khaladaadka sharci labada xeereen ku dhintay iyo afartii hay'adood hore aan iyo tii dambe shantii hay'adood aan iyagu sharciga lahayn wax xeeraba lahayn toddobada hay'adoodba waxa weeye khaladaadka xeerar ee laga galay runtii miisaaniyaddan wasiirkuna uu iska dhaga maray ee aanu ku soo darin haddaba miisaaniyadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka timaadaa sida macruufka la yaqaano saddex qaybood oo kala duwan waxay ka timaadaa dawladda dhexe dawladaha hoose iyo hay'adaha madaxa bannaan dawladda dhexe waxay leedahay meelo ay ka dakhligu ka soo galo meelaha dakhligu ka soo galo waxaa ka mid ah kastamada waxaa ka yimaada 78% dakhliga dawladda dhexe dakhliga ka yimaada kastamadu waa kastamka berbera oo dekada ah kastamka airportka Hargeysa ama airportada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kastamada Kalabayd iyo Sayla iyo kastamada dhulka talabaad ee dawladda dhexe iyadana ka timaada waa cashuurta bariga la yiraahdo oo laga ururiyo cashuura bariga iyo dakhliga kale oo isaguna cashuurta bariguna 20% ay ka tahay dakhliga dawladda dhexe dakhliga kale ee yimaada waxa weeye 2%
oo dakhliga kale ee ka soo urura aan labada midna ahayn saddexda meelood ee ay uga yimaadaan dakhliga ay ka timaado dawladda dhexe ka yimaado waxa weeye meelaha ugu muhiimsan waa kastamka sayno aragnay boqolkiiba 78 ama 79 wax ku dhow ka yimaada kastamada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay waxa ugu muhiimsan kastamka berbera oo 8 wax ka badan ay ka yimaadaan kastamada waxa ka soo xirado dekada berbera sidaynu ognahay waxa la bixiyay oo DBO lagu wareejiyay February 2017 soddon sanadood heshiisa waa lala galay inay dhisto 420 milyan lacag ay geliso inaguna waxaynu lahayn dhulka iyo dalka iyo hantida maguurtada ah ee dalka iyaguna waxay lahaayeen dhisida dekada saasaynu ku sheer gareynay muddadii soddonka sano ahayd ka bilaabmaysay 2017 sanadkii ugu horeeyay ahaa sanadkii shanaad baynu ku jiraa maanta saddex qaybood ayay ahayd qaybaha aynu kula heshiinay shirkadda DBWOL inay maxaan ku idhaahdaa aynu lacagta aynu sheer garayno laba waynu sheer gareynaynay midna kiray ahayd lacagta kirada ahi waxay ahayd lacag 5 milyan inay sanadkii lacag 5 milyan oo kira ay bixiso waxa jiray wasiirku maalin dhawaad oo hadlay wuxuu sheegay 5 sanadood ee ina dhaafay shirkadda inaanay wax faa'iido keenin waxa la yaab leh 5 sano hadaynu faa'iido weynay muddaduna 30 sano ahayd 25 sano inoo hadhay goormaynu markaa faa'iideynaa 5 sanoba waxa gacanta ku hayay dekada DBWOL shirkadda la yiraahdo dalkana waxa gacanta ku hayay oo xukuumaddu ahaa dawladii kulmiye ee kala dambeeyay marka waxa isleeyahay hadaan dawladda kulmiye de 30 sano haday khasaaro baynu galeynaa 30 sano waxay ugu tala gashay inaynu khasaare galno hadii aanay barnaamijka ay sidan hadda ay ka waramayaan aanay wax ka bedelin una malayn maayo 5 sano raga wax bedeli waayay inay waxay bedelayaan soo wadaan waxaan maqli jiray wadamo airportadooda iyo dekedoodii lala wareegay markii deyn lagu yeeshay waxaan filayaa hadaynu sidaa ku sii wadno dawladda kulmiye in dekada deyn ahaan la inooga wareegi doono hadii sanad walba la yahay may faa'iidin waxa uu inoogu xigaysa in la yahay waxayagii baanu kala soo baxayna oo dabeedna la inaga wareego dekadii ahayd masterkii ugu weynaa ee wax soo saarka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa lagu qiyaasaa dekada berbera lacagtii inaga soo gali jirtay DBWOL ka hor inay ahayd 25 milyan 25 milyan baynu inagu faa'iidi jiray oo inaga soo gali jirtay dalkeena inuu ku dhisnay 30 sanadood dekadaas ay ahayd wixii ugu weynaa inuu dalku dhisay ilaa imika jawaabta la isaga wasiirka laga sugaya war hadayna faa'iidin hatta waxayna xagay mareen teen xagay martay hatta hadayna faa'iido kale ka helin la teen asayna inoo faa'iido ahay lacagaha ay ahayd inaynu ka helo dekada marka laga yimaado 5 milyan ee kirada ah ee sanadkii ah waxay ahayd dakhliga guud ee soo gala inaynu boqolkiiba 10 iyadoo aan laga jarin wax kharasha inaynu boqolkiiba 10 aynu ku yeelano ayay ahayd heshiisku wuxuu kale heshiisku dhigayay marka kharashaadka laga jaro netka ama net profit waxa la yiraahdo inaynu ku helo 35 kadib markii ay dawladda Itoobiya 19keedii ay ka baxday waxay ahayd inaynu 35 boqolkiiba aynu faa'iidada qaadano saddexda lacagood wasiirku wuxuu ku soo daray oo kaliya miisaaniyadda
lacagta 5 milyan ee kirada ah waxaanu ku soo darin miisaaniyadda 10% aynu ku lahayn dakhliga guud waxaanu kala ku soo darin 35 ama 35 aynu ku lahayn faa'iidada taana waa kii cadeeyay warkiisa wuxuu yiri waxa mayna faa'iido macnaheedu waxa weeye waxa la waxaynu ka faa'iidnay heshiiskii DB1 oo aan hawl hayrin ma jirto haday sida ku socoto annagu isma lihin waxba lama faa'iidin laakiin waxaan isleenahay meel kale ay xoolaha mareen DB1 la kuma maqna faa'iido la'aan kuma maqna laakiin waxay u baahan tahay tabagal iyo meesha xoolaha mareen iyo miisaaniyadda wuxuu ugu soo dari waayay wasiirku in laga wareysto waana in la helaa oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu helaa labada lacagood sida ugu dhaqsaha badan la jawaabtooda oo ay dawladda kulmiye oo madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi ay ka jawaabtaa hantida ummadda meesha ay martay shuruudaha heshiiska dekada berbera waxa kamid ahaa hadii koror maaliyadeed la gelayo ama taariifada wax laga bedelayo in dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland laga tashado la wargeliyo laga wada hadlo si aanay u saameynin muwaadiniinta iyo nolosha dadka dekada maxaan ku idhaahdaa ay wax uga soo degaan waxaad arkaysaa nimanka koodii bishii bishan aynu ku jirnay koodii bishii koobaad ee sanadka 2022 taariifadii dekada oo dhan iyadoo aan dawladna laga tashan cid kale laga tashan DB1 waxay soo qortay inay bedeshay korna u qaaday 50% wax ku dhow ama 30% wax ku dhow ay kor u qaaday meelaha qaar ko say ku kala tagan yihiin taasuna waxa weeye takrifal iyo ka warhayn la'aan heshiisyadii iyo hantidii qaranka qaabka ay u socdaan ama loo maamulayo ku eedayn mayno cid kale waxaan ku eedaynaynaa wasiirka soo gudbiyay maaliyadan ee xeerkii ama maxaan ku idhaahdaa xeerarkii baarlamaanka ka dhaga adeegay ay ka sugayeen ka dhaga adeegay ee iska indhatiray wixii uu qorayay heshiiskii dekadu ee feerbalka iyo wadahada sheeka suuqda ku maamulay maaliyadii qaranka mas'uuliyadeedana isaga qaadaya wax kasta oo iska bedela dekada iyo taariifada halka qaranka maxaan ku idhaahdaa dakhliga qaranka kaga luma iyo dhibaatada ka soo gaadha muwaadiniinta Jamhuuriyadda reer Soomaaliland dawladda kulmiye iyo wasiirka maanta jooga isaga mas'uuliyadeeda qaadaya waxaan ognahay miisaaniyadaas aan oran karo waa miisaaniyad maxaan ku idhaahdaa dee la iska malaawaalay oo aan xaqiiqo ku dhisnayn ama haynoo yaraato ama haynoo badnaatee waxay ahayd waxeena aynu inagu leenahay oo sidiisa ah inuu wasiirku iyo wasaaraddu ay soo dhigaan miisaaniyadda malaawaalka ee caynka ahayd ee ahayd maanta inaynu inta ay tahay laba laabkeed haysano waa haddii si caadi ah inkamyada qaranka looga shaqeeyo iyo meelaha uu qaranku ku leeyahay ee maxaan ku idhaahdaa uu kastamada ka leeyahay ay kastamadaas aan aaminsanahay inay ka badnaan lahaayeen boqolkiiba boqol ay ka badnaan lahaayeen miisaaniyadda maanta uu soo dhigay wasiirku iyadoo ay sidaa tahay oo miisaaniyaddii aan la garanayn meesha ay ku luntay miisaaniyaddii qaranku hadday tahay tii dekada hadday tii madaarada hadday tahay tii maxaan ku idhaahdaa laanka ama laan tagiskii oo meelaha maxaan ku idhaahdaa kala baydh iyo saylac iyo kastamada bariga ay ka mid yihiin aan la garanaynin waxa ka soo baxay ilaa iminka ee la iska soo malaawaalay taa malaawaalka ah ayaa haddana waxa la yaab leh miisaaniyaddanu maanta
qaabka loo kharash gareeyay ama uu soo loo soo dhigay in loo kharash gareeyo waa qaab aan odhan karo waa wixii ay reer kulmiye sheegi jireen ay odhan jireen waa faakahaysi inta yare hantida ummadda u soo hadha marka la dayacay wax badan oo u soo bixi lahaa in haddana lagu faakahaysto runtii waxaan u aragnaa anagu inay tahay mas'uuliyad darro inay tahay danayn la'aan aan la danaynayn ummadan iyo hantideeda iyo nafteeda iyo maalkeeda iyo qarankeeda intaba in loo ilaaliyo sida loo qoondeeyay miisaaniyadda iyo qarashaadka ku jira sax maaha isuma dheeli tirna waxaana ku jira runtii khaladaad fara badan oo aanu runtii qaadi karinin qarankan oo aanu qaadi karayn kharashaadkaas qaabka loo kharash gareeyay waxa ku jira kharashaad fara badan oo aan daruuri ahayn kharashaadka fara badan ee aan daruuriga ahayn waxa ka mid ah kharashaad la yiraahdo kharashaadka hawl socodsiinta hawl socodsiintu waa macnaheedu waa marka la soo koobo waa kelmadaas ay kulmiye isticmaalaan markay malabka farta ku dhuuqayaan ee ay yiraahdaan waa faakahaysi waxa weeye baabuur lagu shubto batrool dabeedna safar loo baxo habeen dhax la samaysto maxaan ku idhaahdaa hodheelo la kiraysto iyo wax la mid ah weey waxaan arkaysaa miisaaniyadda inta loogu talagalay hawl socodsiinta iyo inta loogu talagalay waxyaabaha asaasiga ah ee ummadda wax u taraya inay badan tahay inta loogu talagalay hawl socodsiintu hadda dib ugu noqoto miisaaniyadda uu soo gudbiyay wasiirka maaliyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland miisaaniyadda uu soo gudbiyay wasiirka maaliyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku jira مثلا markaynu nidhi kharashaadka habeen dhaxa iyo socodka iyo lacagaha noocaasi waxay ka badan yihiin kharashaadka asaasiga ah waxaan u jeedaa waxay ka badan yihiin kharashka lacagta loo qoondeeyay ama qoondada loogu talagalay wasaaradda beeraha qoondada loogu talagalay wasaaradda caafimaadka qoondada loogu talagalay wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda noocaasi asaaska u ah Jamhuuriyadda Soomaaliland marka la isku daro waxa loogu talagalay iyo marka la barbar dhigo lacagta la yiraahdo hawl socodsiinta waxa yar lacagta wasaaradaha loogu talagalay asaasiga ah tabeeraha iyo xoolaha oo ay ahayd inay noqdaan wax soo saarka koobaad ee qaranka hanti fara badan la geliyo dayacana laga ilaaliyo waxay ku jiraan wasaaradda ugu miisaaniyadda yar waayo xukuumadda kulmiye ayaanay macna u sameeyeen wax soo saarka gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabaha cajiibka la yaab kale waxa kamid ah miisaaniyadda waxa ku jira lacag la yaho miisaaniyadda madaxtooyada oo kamid ah 10 miisaaniyadood ee ugu badan 15 miisaaniyadood ee ugu badan xagga marka la soo tiriyo qoondada ugu badan kaga jirta numberka shanaad ama ka lixaad meelaha ka gelaysa lacagta xafiiska madaxtooyada waxay ka badan tahay numberska waa la helayaa waana la idin sheegi karaa waana qoran tahay miisaaniyadda ku jirta baarlamaankuna waa dib ugu eegi karaa waxay ka badan tahay 7 cusbitaal oo cusbitaalada magaalooyinka ugu waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kamid ah marka la isku daro miisaaniyaddooda
ayay ka badan tahay miisaaniyadda xafiiska madaxweynaha ama xafiiska madaxtooyada marka 137 bilyan loogu talagalay xafiiska madaxtooyada wasaaradaha aan soo sheegay isku darkoodana loogu talagalay oo u dhigaysa intaas oo u dhigmaysa 16 milyan oo dollarka Mareykanka saddex wasaarado soo sheegay ama dhowrka wasaarado soo sheegay ugu muhiimsan Soomaaliland wax soo saarkeedana loogu talagalay 59 bilyan oo shilinka Soomaaliland oo dhigmaysa 7 milyan oo dollar waad arkaysaa ahmiyadda waxa ay siinayaan xukuumadda kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo inaanay dan kala hayn qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meelaha uu uga baahan yahay waxtarka iyo waxqabadka miisaaniyadda loo qoondeeyay aynu horu sheegnay loo qoondeeyay faakahaysiga haday number ahaan u sheego waa 567 bilyan oo shilinka Soomaaliland waa lacag 70 milyan marka la yiraahdo hawl socodsiinta waa wax la isu geeyay oo wasaaradda laga sameystay oo qayb lagu darsaday laakiin isu geynteedu waa lacagtaas oo u dhiganta wax ku dhow 24% miisaaniyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu maanta u soo gudbiyay wasiirka maaliyadda 24% haday faakahaysi noqotay waa wax rubuc ku dhow miisaaniyadda qaranka haday faakahaysi noqoto iyo habeen dhax iyo lacagta xaflada loogu talagalay iyo lacagta loogu talagalay in safarada iyo lacagta loogu talagalay in baabuurta batrool lagu shubto la soo wareego haday inta noqoto waxa qaranka u soo hadhaya iyo horumarka qaranka la sugayo ee laga sugayo xisbiga kulmiye ayayna garanay isbarbarada dhigyada noocaasi markaad eegto iyo meelaha ay muhiimadda saarayso dawladdan waa wax runtii aan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dani ugu jirin aan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka saaraynin duruufahan adag maanta ay ku jiraan ee u soo xidhaya albaabada ama sidii madaxweynuhu sheegay ku handaraabaya waxyaaba cajiibka waxa ka mid ah malaayiinka lagaga lunsanayo qarankan wargeyska la hadawan iyo wargeysyo kale oo la yiri dawladda iibsanaysa wax loogu talagalay lacago ka badan lacaga loogu talagalay cusbitaalada dhimirka ee dalka ka furan oo dhan marka la isu geeyo wasaaradda warfaafinta lacagta loogu talagalay oo maxaan ku yiraahdaa wasaaradda ugu miisaaniyadda badan la kamida waad ogtihiin wasaaradda warfaafintu maanta iyo TV-ga iyo idaacadda qaranku waxay ka shaqeeyaan propagandaha sidii tii kacaankiisii barre propagandaha xayeysiiska madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo ashxaasu isagu waliba dawladdiisa dhan ma wada ahay ashxaasu isagu doonayo farta ugu fiiqo iyo cayda iyo maagidda مسؤولين تقارن كحزبية إيه قلياشة كله أنا سجى محن كويدا هذا أنا ندبر كسوت هابني وسارد ورفافينتا وساردها أقول ميزانية بدل وساردها كقرن ميزانية وقون دايسن وساردها ميزانية مانته وصود جاي ساعد على الشراء لما كوري لبي لبات حال إلى إمك وحفا إذا هو قرن كوكب إذا عاد قرن كريم كابتشت أنت كلامه وحنا مثلنا إني قرن كدبات وجرت وأيو ملك استهجد هذا دوت مجال قرن كوكبنات لكن واحد كسب بحياة إني وح تدك يدلك أنفع يو حتر يو دقه هذا وحو ناقصن أي كل عيان أيه هديني كسب بحال تينا مدعين عدة وتانا ما أنت تيجي قرن وحفلة يا إنا يرتاح وأنا تجاني
in la kala saaro miisaaniyadda inta la eg ee inta ku leeyahay hal mid qayb oo kamid ah oo ah wargeyska dawan la yiraahdo ayaa wuxuu ka miisaaniyad badan yahay asbitaalada dhimirka ee dalka ka jira oo dhan miisaaniyadda faakahaysiga ee ka soo hadalay ku dhow 500 milyan ku dhow 500 bilyan ku dhow milyan dollar ku dhow 500 milyan dollar 429 milyan bay marka loo rogo dollar ay ku noqonaysaa wax ku dhow 3 trilyan iyo bar bay ku dhowdahay oo Soomaaliland shilina miisaaniyadda inta la eg oo aan aaminsanahay runtii inay wax badan ka qaban kari lahayd hadii sidii sax ahayd loo shaxeeyo ama meeshii sax ahayd ee u baahnayd la geliyo waxaanu qabnaa inay tahay miisaaniyad faakahaysi waxa nasiib darro ah wasiirka maaliyadda oo lagu tiriyo ashqaasta ugu dhowrsoon marka la eego xagga shakhsiyadda la sheekaysanayo inuu miisaaniyadda inta la eg sida yare fudud ee ciyaarta u soo diyaariyo u soo saxeexo waxaan leenahay Saad Cali Shire sida dadku ku yaqaano iyo sida aad shaqada u wada isma laha yaanu ka tan badanin raali gelinta madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale ee aad wada shaqaysaan ha ka dhabowdo naxadinta damaqa iyo turaalaha qaranka aad miisaaniyadda u qaybinaysa waxyaabo kale oo cajiibka waxa kamid ah wasiirka waraysigiisii wuxuu ku soo qaaday meel uu yiri gobolada ay ku yaaliin wax soo saarkooda ka mid yihiin waxa ka soo baxa oo wax soo saar gobolku leeyahay waraysigiisii BBC uu siiyay ugu dambeeyay waxaan leenahay kastamada waa national issue waa arrin qaran ma aha arrin gobol berberi waa arrin qaran kala badh waa custom qaran airport Hargeysa international airport Cigaal international airport waa arrin qaran dakhliga ka soo baxa waa national issue waa dakhli qaran weey ma aha dakhli gobol gobolada ay ku yeelan saamiga ay ku leeyihiin inay helaan xaq bay u leeyihiin cidina kama xuma xaq bay u leeyihiin inay helaan saamigooda gobolada ay ku yaaleen laakiin ma aha dakhli gobole waa dakhli qaran weey inta soo sheegay marka miisaaniyadda aan kaga soo hadlay iyo khaladaadka ku jira waxaan jecelahay inaan halkan fariin uga diro golaha wakiilada ee maanta ay hor taalo waanu soo jeedinahay aan gaarsiino si ay ugu qaybiyaan miisaaniyadda qaranka oo ay noqoto miisaaniyad waxtar ah hadii la helo ay soo baxdo weey waxa sheegeen inaan faa'iido ma jirin hadii la helo daraska ay sheegeen si loogu qaybiyo qaranka inay runtii aad u raaciyaan oo dib ugu noqdaan meelaha qaranka aan isleenahay baahi badan baa ka jirta miisaaniyaduna si fiican looguma xusin ama intii ay ahayd in laga xuso lama xusin waxa kamid ah ciidanka qaranka 20% baan u kordhinay bay yiraahdeen anna waxaan leenahay ciidanka qaranka wuxuu istaahilaa 50% in loo kordhiyo ciidamada qaranka way duruufta ay ku shaqeeyaan iyo waayaha ay ku fadhiyaan ciidamada qaranku waa waaye runtii u baahan in hoos loo eego waxaan leenahay baarlamaanka fariintan u filayna waxa uu direynaa waxa weeye 50% ayay ciidamada qaranku istaahilaan una baahan yihiin in loo kordhiyo arintaana saasaan oo ku talinaynaa in 50% loo kordhiyo waxaan kaloo ku daraya soo jeedinteeda kamid ah in loo kordhiyo shaqaalaha runtii
hawlaha badan qabta shaqaalo dawladada dhammaan hawl badan buu qabtaa waxa ay qaataan ama mushaharka iyo sicirka suuqa maanta yaalana wax isu dheeli tiran maaha waxa maalintii la doono la iskaga darayo noloshii wixii la doono lagu darayo laakiin meelaha ay muhiimka tahay aan isleenahay iminka way ugu soo horeeyaan iyadoo meel walba muhiima ayaan sheegayaa ciidamada qaranka oo kala duwan baa ugu soo horeeya waxaan leenahay 50% loo kordhiyo waxaan leenahay shaqaalaha caafimaadka waxay mudan yihiin in 30% loo kordhiyo waxaan leenahay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ama macallimiintu duruuf adag oo tuulooyin leh oo masaafooyin fog leh oo meelo fog reerahooda ay kaga maqan yihiin la sida ciidanka qaranka oo kale ayay leeyihiin 30% loo kordhiyo ayaan soo jeedinaynaa shaqaalaha labada wasaaradood caafimaadka iyo waxbarashada waxaan leenahay golaha baarlamaanka miyaasiyaddu waa ku filan tahay qoondada aanu sheegnay hadii looga jaro oo loogu kordhiyo saddexda qaybood ee kamida qaranka labada wasaaradood iyo ciidamada qaranka hadii loo kordhiyo oo waliba inta aanu sheegnay ama looga badiyo ama looga dhigo waxaan leenahay miisaaniyadda lafteeda ayaa ku filan waayo waxaan u baahan tihiin inaad dib u eegtaan miisaaniyadda qaybaha faakahaysiga iyo qaybaha aan ahayn daruuriga waxaan doonayaa soo jeedintaas inaan ku soo gunaanado soo bandhigidii miisaaniyadda qaranka falcelinta aanu ka sameeynay ka xisbi ahaan dardaarankeedu waxa weeye sida aanu sheegnay miisaaniyadda maanta taala ma aha miisaaniyaddii ay ahayd inay taalo wax badan baa maqan qarankana uu isla xisaabtamaya haddii maanta aan la isla xisaabtamayn uu isla xisaabtami doonaa waxaanu la tusi doonaa miisaaniyadda ku xigta oo aan rajaynayno anigoo xogayii maaliyadda aan rajaynayo inaan miisaaniyadda ka dambaysa 2023 haddii ilaahay nafta daayo inaan ka mid noqdo dadka diyaarinaya waxaan rajaynayaa inay noqoto inta maanta saacado aad keentay labadeed xisaabtanka iyo qaranka hantidiisa in la dhowraano waa waajib qof kasta saaran in la soo xareeyo waa waajib qof kasta saaran in loo turo shacabka iyo dadka jilicsan iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeedana waa waajibaad na wada saaran waxaan ku darayaa arintaas oo iyaduna runtii miisaaniyadda maanta si qaab daran oo aan runtii habaysnayn uga muuqata mashruucii la oran jiray 2% ee gobolada bariga aad buu runtii si aad u liidata buu uga muuqdaa waxaad moodaa gobolada bariga inaanay miisaaniyadda wax kale ku lahayn 2% uu wixii ka go'ah la yiraahdo qol dhakhtar baa la idinka dhisiyo laba qolo iskuul baa la idinka dhis oo inta miisaaniyadda inta kale aanay waxba ku lahayn waxaan cadaynaynaa gobolada bariga inay miisaaniyadda xaq wax ku leeyihiin 2% uu yahay harumarin uu ahaa 2% gobolada bariga wuxuu ahaa in harumarin uu galo laakiin hadda waxay cadeeyeen reer kulmiye 50% wax ka badan inay siyaasad galaan iyo dad maxaan ku raahdaa aan runtii natiijo badan ka keenin wax ka qabadka gobolada bariga waxaan leenahay arintaasuna waa arin miisaaniyadda maanta u baahan inay hoos u eegaan qaabka ay miisaaniyadda marka hore loo talagalka miisaaniyadda uu yahay ujeedada loo sameeyay dib loogu noqdo labada 2%-ga ujeedadii loo sameeyayna lagu fuliyo aan ujeedooyin kale lagu fulin iyo siyaasado kale waxaan ku soo gabagabeynayaa golaha baarlamaanka baaqa aanu diray inay hoos u eegaan inay miisaaniyaddaas
ay noqoto ka soo saaraan haba inoo yaraatay ay ka soo saaraan miisaaniyad anfacda qaranka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.